السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسو دوادا برنامج كان عصب وانا وقوم قعدرني وحكبر دادك قولستي أدونك برنامج كان ياينو نقن يميت حنا قيبتي سوكواد مانتي وحان كسو قادنينا تلوين وينسينو يجاقما أوه بليونير ودش دالك تشاينا وانينك اوغان تيدا بدبادان دالك تشاينا islamar kaana kamid ah dadka safka koowaad ka kaga jira hantida ee caalamka tilaabooyinka uu nasiinayo waa tilaabooyin afar ah oo maanta aan doonayo halkan inaan idinku soo gudbiyo tilaabada koowaad wax fikrad ah ma ka haysatiniya waxa aad doonayda inaad noqoto nolosha waxa uu leeyahay jaagma kan jiray 40 sano ayaan ogaaday waxa aan doonayo noloshiidii marnaba kuma fakirin inaan noqonayo ganacsade inaan noqonayo macallin sidaa daraadeed waxaan noqday macallin waxaan noqday ganacsade mana ku fakirin taas iyada taa bedelkeeda waxaan doonay inaan noqdo nin boolis ah waa la ii diiday xitaa waxaan doonay inaan noqdo kibliyeeri waa la ii diiday riyooyin badan ayaad ku fakiraysaa balse inta badan ma shaqeeyaan tilaabada labaad ha isku dayin inaad noqoto qofka ugu wanaagsan waxa laga yaabaa inaad yaabtay balse micnaha ayaa ah ahaw qofka koowaad ee isbedel sameeya ahaw qofka koowaad ee caqabadaha ka gudba maxaa yeelay inaad noqoto qofka ugu wanaagsan waxay ka dhigan tahay in uu jiro hal champion league mar walba waxaan isku dayaa wax cusub mana quusto rumaysataas maxaa yeelay waxa tahay qof unique ah mar walba ahaw furaha noloshaada waxa sidaas dhahaya jaagma tilaabada saddexaad adduunka waxa ka buuxa fursado adduunkan aan ku noolnahay waxa ka buuxa caqabado iyo fursado 20 sano ka hor waa ay jireen caqabadaha iyo fursadaha inta in la eg oo soo socota waa ay jiri doonaan caqabadaha iyo fursadaha mar walba waxa ay ku xirantaa sida aad u raadiso fursadaha qof ayaa raadinaya caqabadaha fursad dadka yar yar waxay leeyihiin ma jiraan wax fursad ah aniga markaan yaraa ayaan u cabanayay maxaa yeelay waxaan islahaa Bill Gates ayaa qaatay fursadii Microsoft-ga iyo Steve Jobs iyo kuwa kale waxaan islahaa fursad laakiin fursaduhu waxay ku jiraan caqabadaha haddii aad xallido caqabadahaaga oo hubaal waad guuleysanaysaa caqabad weyn oo aad xallisaa waa fursad weyn oo aad heshay tilaabada afaraad ma doonaysaa inaad faraxsanaato ahaw qof caafimaad qaba nolosha waa safar aad doonayso inaad faraxsanaato inaad ku raaxaysato inaad caafimaad qabto haddii aad caafimaad qabin waxay ka dhigan tahay inaadan faraxsanayn sidaa darteed farxadda iyo caafimaadka waa laba shay kuwaas oo bini aadamka mar walba raadso wax muhiimad ah ma laha haddii aad nooshahay muddo dheer oo aadan caafimaad qabin waad ku mahadsantihiin daawashada fiidiyowgan kan ku xiga waxa uu noqon doonaa mid isaga la mid ah oo aan uga sheekay doono dadka guuleystay iyo sida ay ku guuleysteen insha Allah ta'ala wuxuu noo noqon doonaa barnaamijkan mid tixana ah subscribe haddii aad nagu cusubtaa sidaad u hesho fiidiyowada soo socda lana wadaag asxaabtaada si ay ka nooga faa'iideystaan channelkan Asri Media